cutubyadan ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ay tababartay dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta lagu wareejiyay dowladda Soomaaliya si ay uga qayb qaataan dagaalka maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab looga saarayo meelaha yaryar ay kaga sugan yihiin gobolada dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka oo booqday ciidanka oo lagu tababaray xarunta General Gordon ee magaalada Muqdisho ayaa mid u salaamay isagoo ku dhiirigelinayay dagaalka ay dalka kaga xoreynayaan nabadiidka Al-Shabaab iyaguna ay yihiin geesiyaasha ummadda iyo qaranka Soomaaliyeed. qalbigeenu waa saafi rajadii Soomaaliya ugu fiicneed maanta Mudane Xasan Cali Khayre Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa xusay in madaxda qaranku ay garab taagan yihiin ciidanka isla markaana ugu imaanayo goobaha ay dagaalka ka galayaan. Aniga iyo taliyaha xoogga madaxweynaha iyo dhammaan madaxda qaranka هنقضانا حلبانو هنقضانا سنترو هنقضانا سياسيين كلين وايدين قرب تاغنا سومالي ميل والبي جوجتو مانتي وحا افرن هل طريق كلي طريقاسي وحا يهي inaan marka hore ka xoreyno cadawga ummadda Soomaaliyeed dhulka ummadda Soomaaliyeed qof walba Soomaaliyeed oo dhageysanaya oo daawanaya meeshan maanta ciidanka jooga waxaan leenahay ciidankaas u soo duceeya soo garab istaaga la garab istaaga wax walba ay u baahan yihiin ballanteenu Soomaaliya inaan dalkeena xoreyno ballanteenu Soomaaliya inaan mar dambe dhiig Soomaaliyeed lagu qubin jid Soomaaliyeed ballanteenu Soomaaliya inaan soo celino sharafta iyo karaamada Soomaaliyeed ballanteenu Soomaaliya inaan soo celino ciidankii la dhihi jiray libaaxyadii Afrika idinku qabiil miyaad leedihiin idinku soo kama sareysaan qabiil iyo qabyaalad idinku soo maahidina cidda kaliya oo dalku ku tashanayo soo dhalinyaradii maahidina dalka u hareysay waxaan idin leeyahay yaan jidka marna la idinka leeyahay taliyaha waxaan ka codsanayaa meesha la idin geeyo oo la idinka dagaal gelinayo marka aad shaqada bilowdaan meeshaasna inuu igu marti qaado si aan idinku imaado hadii Ilaahay yiraahdo. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlayay ciidanka ayaa sheegay in rajada ummadda Soomaaliyeed ay leeyihiin ay tahay ciidanka isla markaana cadawga argagixisada Al-Shabaab looga baahan yahay inay ka saaraan dalka taliskana looga baahan yahay inay ilaaliyaan ciidanka inaanay shabaabku Soomaali ahayn inay shabaabku yihiin cadawga ummadda Soomaaliyeed loo soo diray sida kaliya oo cadawgaas la isaga dhicin karana waxay tahay inaan kulligeen meel uga soo wada jeesan idinka marka idinkoo matalaya sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed koo waxa la idinka rabaa cadawga inaad dalka ka xoreysaan labo sida aad ula dhaqantaan shacabka Soomaaliyeed oo aad la kulmi doontaan ayaa iyaduna waxa ay tahay sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed haddii aad aragtaan qof waayeel oo jidka dhaafsiisaan haddii aad dadka aad u tageysaan aad u sheegtaan qaabka aad u shaqaynaysaan haddii aad u sheegtaan sida aad uga wanaagsan tihiin shabaabka kuwaasuna inay yihiin hooyo dile iyo aabba dile idinkuna aad tihiin hooyo iyo aabba badbaadiyayaal iyagaa idinla shaqaynayo ugu dambeyntii cidda la badbaadinayo waa shacabka Soomaaliyeed waa in la kala gartaa cidda gumaadaysa iyo cidda u gurmanaysa idinku waxaad soo istaagteen inaad badbaadisaan cadawga aad rabtaan inaad la dagaalantaanna waxay soo istaageen inay cirib tiraan annaga u mahad celinayna dawladda Imaaraadka oo tababarka idin siisay idinkula soo dadaashay maantana la idinku wareejinayo gacanta taliyaha
taliyaha iyo taliyayaasha ka hoos shaqeeya waxaan u sheegayaa ciidan wanaagsan kama soo haro talis wanaagsan sidaad ciidankaas uga warqabtaan ula dhaqantaan ayay ku xirnaan doontaa natiijada ay dagaalka ka soo hooyaan. ciidankan maanta lagu wareejiyay taliska ciidanka xoogga dalka ayaa qayb ka ah diyaargarowga dagaalka argagixisada al-shabaab looga saarayo dalka si dhagartooda looga badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed ay ku xasuuqayaan maadaama hadafkoodu yahay dabargoynta ummadda Soomaaliyeed. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.